السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرارو فروت امباير oo soo booqatay maantay xarunta oo Kenya KTDA Kenya oo qaybta maartay ku takhasustay xagga shaaha caleenta sida hore Englishka in kugu sharaxnay waxa laga waxeeyaa geed la jiray ama cutting waxa la dhahaa laga waxeeyaa intaano clone bana laga waxeeyay ilaa 45 nooc baa laga waxeeyay shaaha waxa loo waxeeyay yani number 1 in maartay quality-ga shaaha la hormariyo number 2 adduunka waxa keenay isbedel badan baa ka dhacay isbedelkaas oo keenay cimilada oo keenay sidoo kale waxa isbedelkaas markuu dhacay waxa batay cayayaankii baa batay waxa kaloo batay maxaa la dhahayay cudurradii marka taa daraadeed baa waxay sababtay in maaragtay la sameeyo isbedel marka ilaa 45 nooc baa la waxeeyay markii kuwaas oo u adkeysan karo cimilada isbedeshay qaybahooda kala duwan cimilada isbedeshay waxyaalaha ay sababeen ayaa maaragtay markay taas dhacday baa waxa la waxeeyay marka variety-gan kala duwan intaana clone kuwan oo marka u adkeysan kara cimilada kulul cimilada maartay jawiga isbedelka ah oo yani sidoo kalena yani waagi hore mir baa laga waxay jiray laakiin mirti dhibaato badan baa ka imaaday marka waxaana laga waxeeyaa waxa la dhaho cutting sida halka ka muuqato baalahaas la jarjaray qaybtaas baa saasa loo jarayaa geedka weyn baana laga soo jaraa markii aad diyaariso halkaas aad gelinaysaa qaybtaas waxaana lagu diyaariyaa bacahan waa xaalaha bacyo bicii hore waa la bedelay laakiin kuwan waxa waaye kuwa markii oo abaar ay joogaan waxay ka mid noqonayaan ciidda naasariga marka laba qaybood baa loo waxeeyaa mid kore iyo mid hoose oo qoraxda ka ilaaliyo naasariga oo caleenta shaaha marka tan wuxuu ka ilaalinayaa qoraxda harsh climate-ka ama maxaa qoraxda kulul halkan si hoos loogu waxeeyo halkan waxay ku qaadanaysaa ilaa naasariga qayb 8 bilood bay ku qaadanaysaa sida halkan ka muuqato 3 bilood kadib meeshan sida ku qoran ilaa 8 bilood bay ku qaadanaysaa transplanting markaad sameynayso oo yani diyaar u noqonayso in la sii talaalo waxay noqonaysaa muxuu ahaa 8 bilood kadib waxaad u soo gudbinaysaa halkan oo godadka loo diyaarinayo godadka markaad diyaarinayso mashiinta baa lagu waxaynayaa mashiinta meesha ka muuqato yaa godadka lagu diyaarinaa in 1 acre waxa ku waxaynaa 1 hectare yani waxaad ku waxayn kartaa 2 maalin gudahood ku waxaynaysaa meelaha iska ilaalinaysa maxaa kamid ah meelaha dhagaxa leh meelaha oo maartay xoolo aad ku haysan jirto kale pH-keeda aad bay muhiim u tahay meesha caleenta shaaha lagu abuuro geedkeeda pH-keeda waxa waaye optimum waxa waaye 4.5 pH levelkiisa waa ina ahaataa waa daahda haddii la dhaho ka kormariso 5.5 laakiin wixii intaa ka sarreeya waxa waaye shaaha kama baxayo way ku adkaanaysaa sidoo kale waxaa jira qaybaha markuu stage gaarabo يعني حب أو بروني لو سميه أما ولا جراه سلوا هذا يقاب كوبحي إنه جيسا وكلا بحال ربا 6 إنش والو جراه كدب 11 إنش ما أجريسا ساسا قوة ذيسا مركا هذا مركا ديارنا سكر قيبها أنا الله دياريا يعني جيتك ولا توسيا إنه اسكب على مرة وسيل ديري عبار كدب وجريسا وحال ربا ولا برون جريا مركا هذا قيبها قيبتها باركومند نوعان نوع عاشش جيتك كل اللي اسكديني إنه فري هاي اسكبحه kadibna halkaan loo imaanaa oo diyaar u noqona xilligii maartay la goosan lahaa oo kale maantala marka qaybtii la goosan lahaa bariyi hadda adduunku waa sii develop garanaya marba marka ka dambayso waxaa la isticmaalayaa mashiintaas maartay meesha ku taalo taas ayaa lagu gooyaa wixii yani dhibka badnayd oo lagu dhibtoon jiray ma jirto waxa kale oo aan ka hadli rabo waxay ahayd deegaanka Soomaalida mu ka bixi kara waa jirtaa deegaano uu ka bixi karo meelaha buuraha dhulka qabow adoon 12 ilaa u dhaxayso daati degrees uu ka bixi kara dhulka qabow waxaan filayaa dhulka hadda Soomaaliland iyo qayb kamid ah buuraleyda Soomaaliyeed inuu ka bixi karo sida buurta Sheekh iyo Daalo meelahaas uu ka bixi kara sababtoo waxa la ii sheegay inuu jawigooda ma sha Allah yahay oo fiican yahay